maantay waa maalin aad u farxad weyn runtii maadaama dalkeenu uu ku jiro xaalad adag oon isku dayayno inaan ka soo kabsanno waqtigii kala guurka waxaa kaa hor imaanaya caqabada waaweyn oo mar walba aad u dareentid in xalkii weli uu fog yahay markaasaad waxaad is leedahay maxaad eegtaa oo tusaale ah oo kuu fududayn kara inaad fahamtid in xalka ummadda Soomaaliyeed iyo sida loo soo celin lahaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay soo dhowda jawaab ugu fiicneed oo maanta la arki lahaa waa inaan hor taaganahay 1,000 arday oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka kala timid gobollada dalka oo dhan in jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay fadhido ugu yaraan 1,000 arday qaar kaloo badan oo rabay halkan inay yimaadaan aan ku soo maray jidka haddii qof madaxa oo dalkan jooga uu walwal ka qabay inuu dalkani mustaqbal leeyahay tusaale maanta tan ayaa ugu filan kow waad ogtihiin xaaladda waddankeenu uu ku jiro waddanku wuxuu ku jiraa xaalad ah laba jido culus meel dhexdood ah haddii aan gadaal u noqonno waxaan ku noqonaynaa waqtigii dagaalka iyo xabadaha iyo qabyaaladda haddii aan meesheena taagnana waxaan joogaynaa meesha hadda aan joogno oo aanu dalku dadkoo dhan ku wada filnayn dariiqa keliya oo noo furan waa dalku inuu hor u socdo oo ku tillaabsado nidaam cadaalad iyo dimuqraadiyad ku dhisan ku tillaabsado nidaam dalku uu dadkiisa ku filan yahay ku tillaabsado nidaam kulligeen aan isu dul qaadanayno aqbalaynana inaan dalka wada leenahay rajada keliya dalkani uu leeyahay oo maanta ugu weyn waxay tahay in dadka dalkan ku nool 70% ay yihiin dad ay da'doodu ka yar tahay 30 sano haddii inta badan ee dalkeenna dadkiisu ay yihiin dad da'yar wiilal iyo gabdho idinkoo kala fursadda dalkan dib loogu dhisi lahaa way ka duwan tahay waddamada intooda kale adduunyadu waxa ay ku tartanto waa laba shay waa dad iyo aqoon macnaheedu waxay tahay annagu waxaan haysanaa dadkii aqoontiina waxaan haynaa jidkeeda laakiin waxaa loo baahan yahay jiil cusub oo la tartami kara adduunyada fahamsan adduunyadu meesha ay marayso dareemaya sida dunida loola tartami karo loola xisaabtami karo loola shaqaysan karo jiilkaasi waa idin maanta waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo haddii wiil ama gabar halkan fadhiyo uu fikirkiisu yahay inuu subaxi jaamacadda yimaado waqtiisa akhristo imtixaanka ku guulaysto keliya waxaan rabaa inaad dib u fikirtaan waxaan rabaa inaad ogaataan mustaqbalka dalkan inuu idinka yahay waxaan rabaa inaad ogaataan dalkan idinkaa iskale ciddi u hari lahayd dalka waa idinka waxaan rabaa inaad ogaataan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo meel walba ku gaajaysan cidda ay sugaan idinka inay tahay waxaan rabaa inaad ogaataan cidda aad ku soo barateen inay tahay dalka iyo dalka sidaas daraaddeed waa in aad u soo istaagtaan mas-uuliyaddii ay u soo istaageen dadka dhalinyarada ah oo dalkan soo dhisay waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo horaantii sanadku markuu ahaa 1943 waxaan kula talinayaa horta intaanan idiin sheegin qisadaas qof walba oo idinka mid ah inuu bilaabo inuu akhriyo taariikhda ummadda Soomaaliyeed markaad akhriso taariikhda dalkaada oo aad og tahay dalkaadu wuxuu ahaan jiray ayaad fahmaysaa meesha aad maanta taagan tahay waxaad kaloo fahmaysaa fursadda aad leedahay inaad tagto meel maanta iska duwan meesha aad joogtay laba wiil oo Soomaaliyeed ayaa isu timid sanadku markuu ahaa 1943 maanay ka sheekaysan tan annagu aan maanta ka sheekaysanayno oo ah dadka sidee shaqo looga abuuraa gobolka banaadir iyo gobollada dalka sidee dib loogu dhisaa
دولة هي حكومة هي برلمان سيدان وكلا قيبسنا خيرات كوطن كسيدان وكلا قيبسنا معنى أحيان شركوين كي يقولش هالسوي مادين فالسوي مادين شركة حنون بدل قوة صور marka haddii ay qof idinka mid ah ka fikirayso maanta ayuu dalku dhibaato ku jiraa wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ayaa waxay 1943 ku sheekaysanayeen sidee baan gumaysiga dalka uga xoreynaa wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo da'diin oo kala 23 24 26 ayaa waxay isugu yimaadeen meelo aanay xor u ahayn inay isugu yimaadaan aan loo ogolayn inay ku shiraan aan loo ogolayn inay ka hadlaan aan lahayn telefoon aan lahayn internet aan lahayn social media aan lahayn Facebook waxay isugu yimaadeen keliya hal mid inay xoreeyaan dal Soomaaliyeed oo gumaysi waxay ka fikirayeen wax iyaga maskaxdooda iyo noloshooda ka weyn waxay ka fikirayeen idinku inaad si iyagu ay u noolaayeen si ka wanaagsan aad u noolaataan wiil Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ayaa 1943 iyadoo dhibaato walba ay haysato waxay ka fikirayeen inaan helno anagu nolol ka wanaagsan noloshay ku jireen yani gadaal u noqo ay ka fikir labada wiil sheekadoodii waxa ay dhashay inay wiilal kale u yeertaan waxay noqotay 13 wiil 13 wiil waxay go'aan ku gaareen inay abaabulaan urur siyaasadeed oo gumaysiga dalka looga saaro waxay ugu horreeyay isu sheegeen waxay ahayd inay gumaysiga laftiisa waa intaan SYL la soo gaaray inay warqad u qoraan ku qoraan warqadaas iyada ah inay furan karaan xafiis yar oo isku abaabulaan in loo ogolaado inay furtaan xafiis yar oo isku abaabulaan ama haddii loo ogolaan waayo iyagu inay kiraystaan guri yar oo iyaga anfacaya si ay isugu yimaadaan waxay ka codsadeen gumaysiga inay furtaan naadi la yidhaahdo inta aan SYL la soo gaarin waqtigaas SYC waxaa kaloo ka codsadeen inay dejistaan barnaamij ku-meelgaar ah oo dabooli kara qorshaha shaqo ee loo baahan yahay lagana rabo dhalinyaradaas ninkii ay u geysteen arjiga ay u tageen ayaa wuxuu ugu jawaabay erayada soo socda wuxuu yidhi waxaad ka kooban tihiin qabiilo kala duwan waxaana hubaal ah in aadan ku heshiin karin fikir iyo ra'yi toona anigu waxaan idiin arkaa waraabayaal iyo ari xero lagu wada xareeyey sidee ayaad naadi ugu heshiin kartaa markii dhalinyarada sidaas lagu yidhi maanay carabin iskama tegin ma niyad jabin maanay isdihin waddankanu raje male waxba lagama qaban karo dadaalkii ay bilaabeen maalintaas waa kii dalka lagu xoreeyay 15 May 1943 ayaa waxaa u suurto gashay 13 dhalinyarada ahaa inay si rasmi ah dhidibada ugu taagaan naadigii waagaa la magacaabay Somali Youth Club. waxaan uga hadlayaa dhalinyaradaas waxaan rabaa inaad ogaataan waxay ahaayeen idinkoo kale waxay ahaayeen da'diinoo kale waxay matalayeen dalka idinku maanta
الإنسان برنامج كحزب جودة وقت قاعد يستقع ومركي دمبي سوب الدليس وعيال دستور كيسة وحاول الرئيسي إن صوماليا ولا الإسكور هذه إن قبيلة ده يدريقوين كل الدول اللي فوقها إن نبقى واحد لبر إيه حقوق الرئيسي إن قبيلة ده اللي فوقها إن نبقى الإسكور هذه إن نبقى واحد لبر هم يقول إيه إن نبقى واحد لبر وكي وقدوميها جامعات وكهدلاي وانكسو قرني إن أرضي صوماليات ودليرة وقبرئي ويلة سنة كي كل سجار بقولي تدواتري صوماهين تدواتري سدح دي عندنا إن مال والبلاد درس قف والبقى صوماليات مال والبقى جوجو دلك جديسة سيلوا برسدوا صومالي بقولي إن نتكلم حلا برا إن قبيلة دليرة فوقات أي كان الجيران ممكن waxay soo mareen dhacdooyin tiro badan ama ha noqoto banaanbixii ha noolaato ama ha noqoto dhagaxtuur ama ha noqoto allah u naxariista markay xaawadaadka ku dhimatay laakiin wax walbay soo mareen waxay u soo mareen in dad Soomaaliyeed oo iyaga ka dambeeya loo ogolaado inay helaan fursad iyagoo aan helin waxaan rabaa markii inaan idin weydiiyo hal su'aal dhalinyaradii Soomaaliyeed ee waqtigaa jirta hadday dalkoodii intaas ku geeyeen maxaad u gushiin dalkii ma waxaan ku noolaanaa dal dhalinyaradiisu ay ka dhoofto ay ku dhintaan badaha iyagoo saaran dooniyo jajaba ma waxaan ku noolaanaa dal dhalinyaradiisu ay tahay boqolkiiba 70 laakiin sababtoo ah waxaa jira cadaalad darro iyo musuqmaasuq inaanay shaqo heli karin ma waxaan ku noolaanaa dal qabiilku uu ka wen yahay qarannimada ma waxaan ku noolaanaa dal raje la'aan ah mise waxaan ku noolaanaa dal raje iyo karaama ah su-aashaas jawaabteeda idinkaa idinka raba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa naga go'an in laydin ogolaado fursad walba ood xaq u leedihiin laakiin dhalinyaradii aan idinkaga sheekeynayay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo guddoomiye gobol midna uguma yeerin waxay xaquuq u leeyihiin iyagaa waxay arkeen wax iyaga ka weyn iyagaa isu arkay inay leeyihiin macno waqtigaas ay joogeen ka weyn iyagaa isu arkay in indhahooda ay arkaan waxa dadka kale aanay arki karin iyagaa ahaa indhihii caafimaadka qaba dalkan hadda aan ra'iisul wasaaraha ka ahay cidda xaqa u leh mustaqbalka inay hogaamiso waa idinka cidda ugu haraayo waa idinka cidda laga raba inay dhisto waa idinka haddii aad aaminsan tihiin in dalkani uu ka kooban yahay jidad jajaban iyo xabado iyo qabyaalad dib ugu noqdo taariikhda dalkani wuxuu ahaan jiray Afrika dalalka ugu horeeya dal kamid ah haddaan waayn dalka Afrika ugu horeeya dalkan wuxuu ahaa dalka ugu horeeyay ee Afrikaana oo doorasho rasmi ah oo dimuqraadi ah ka dhacday labaatan iyo lix sano kadib ay ku qaadatay waddanka kale oo lagu soo xogay si ay u gaaraan heerka xorta ah oo doorasho lagu arkaa waxaa soo gaarsiiyey dhalinyaro idinkeeda lamida waxay diideen in la kala qaybiyo dadka waxay diideen in la kala qaybiyo dalka waxay ka doorteen qarannimo qabyaalad hadday jirta markaa waxay ka doorteen Soomaalinimo wax walba
وحاتين أرضي جامعة وضلك الهرمود قوة وحاليستان آلة والبا ودنيا كل حريري كتان وحاليستان فرصة قميسي كحرين ميسان دلك عدو بانتي كلية دلكن إن أدوغا شغيسان سيدي ويهاي دلك كلية وان لن عن وقف والبا وصوماليات وإمغليسا قاعدان إذنك إن أدوغاتان إن أنا اللهين دلكن دلك كلية وان لن هاي ودلكن meel loo caaran ma jirto haddii aad rabto inaad dalka dibaddiisa aadid sida keliya oo aad sharaf iyo karaamo ku heli kartid waa inaad marka hore dalkaada iyo dadkaada sharaf iyo karaamo ka heshid sida keliya oo dunida ugu noolaan kartid haddaad rabto inaad meel kale ku noolaato waa in marka hore dalkaada uu yahay meel ugu noolaato sida keliya oo dunyada lagu aqbali karto waa inaan annagu is aqbalnaa marka hore dadkii idinka da'da weynaa oo aniga iyo waxa iga weyn ah oo ku jiro gudoomiyaha jaamacaddu waxaan ka xumahay inaan ku saabsanay inaan idiin dhiibno Soomaaliyeed ee xaq u lahayd waxaan ka xumahay inaanan hayn wadankii aan xaq noogu lahayd inaan idiin dhiibno waxaan kaloo ka xumahay annaga keliya haddii aan ka shaqeyno inaanan keeni karin inaan idiin dhiibno Soomaaliyeed ee xaq noogu lahayd xasuusinayaa marka haddii aad rabtaan idinka iyo carruurtiinuba inaad si wanaagsan u noolaataan haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhallinyaradii ka mas-uulka ahayd xoreynta dalka haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah oo idinka idinka dambeeya inaad uga tagtaan haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu haddaan uga hadlayno Soomaaliyeed وسدين ومان وأنا كعدان فرقة وأنا ذهدك كعدان وأنا أبا بشان ودسوا أبا بشان سيد دول النمط اللي سوا علينا وأنا دسوا أبا بشان صومال النمو والقبيل كتكتان وأنا دسوا أبا بشان سيد أقول حساب قبل هيدان رئيس الوزراء مدحوينها قدوميها قبلك برلمانك إيه حبناها أدرس كسر وإن الترادان دلكن أنك إسكال الطريق قاسم وقولين له قصر ما تدوري إن حبطا بيني كنعم ما تدوري إن قرارات دلكن له كنعم وعنده كل حساب قمينا وحا عبدستان إذا كنت تحكي لنا إنه وحا عبدستان وحمهيما إلى نقول حساب تنتان وحا عن ذلك كبسنا حمهيما إلى نجاء أبار مريسان وحا عن ذلك قدوم سياسة هذه فكر كين نقوها دولة بعد ألقي حكومة باجرتا شغال نواه رايا دلبان الكسور جنايا ملك الكسور جنايا حتى هذا الدين بكعنك بيسند dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalkan soo xoreysay ma aanay haysan wax aadaysataan ma aanay lahayn fursad aad leedahay ma aanay ku dhiiran karin wax aad ku dhiiran kartaan laakiin way ku dhiiraneen وعاديستان حكومة مدحوينة ديار إن الله شقيسان لا حسابتان وعاديستان دل إذنكو أدمرمون تهين وحاضرين كرتان تاريخ قصد ما أنتو عندك بوي مدينة دين شاوة إناني إذن دلكين إذن كرهين وعن إذن شاوة إذن بوي مدينة دين شاوة إذن كإسكال دلكا واي إذنكو إذن هرايا وعن إذن شاوة إذن شاوة إنان جيفتان ودهدودك كعلام سؤال سويدية محان دلكي بتركا ما هم دلكي بتركا dhalinyarada Soomaaliyeed dowladda fadhiya iyo inta maqlaysa waxaan idin sheegayaa haddii dalkani rajeeyo u leeyahay idinkuba
gashaan ka shaqaysaan dalkiina waxaan ka codsanayaa inaad nala xisaabtantaan laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad nala shaqaysaan maalin walba oo khasaarta taariikhda ummadda soomaaliyeed ee ka khasaarta hooyo soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed oo nolol fiican heli lahaa ay ka khasaarta carruurtiina mustaqbalka aad dhalaysaan oo kuwa aad leedihiin ay ka khasaarta